filimkeena wuxuu ku bilaabanaya meelkeena oo soo maraya gaarigan waxaa saaran laba lamaane oo lagu magacaabo Nuura iyo Aleeg waa aroos cusub bixisoo aadaan tuuladooda si ay u soo qaataan bisha malabka intii ay socdeen gaariga saarneen Nuura waxaa qabanaya xaajo yacni suuli ay qabanaysa Nuura iyo Aleeg ayaa silma finaalkan ku imaanayaan si ay u gutaan xaajadooda markii ay meesha maadaan dad way kawaanayaan Nuura ay soo bixisay si ay u soo gudato xaajada Nuura waxay soo aadaysaa meeshan duurka Nuura ayaa waxaa galaysa cabsi waxaan ka cabsanaysaa meeshan sidaan Nuura intay si socotay waxay arkaysaa aqoonsi yar oo meesha way soo qabanaysaa weyn fiirinaysaa qofku yahay aqoonsiga waxayna fiirinaysaa reeraheeda weyn kawaanaysaa qof jooga kadib Nuura ay hor u soo bixaysaa waxayna fadhiisanaysaa meeshaasi kadibna saxaradeeda iyo xaajadeeda kale ay ku gudanaysaa kadibna Nuura iyo Aleeg soo baxayaan si ay u sii wataan safarkooda gaarigooda ay soo raacayaan Nuura iyo Aleeg intuu sii socday safarkooda waxay soo marayaan meel aad iyo aad u cabsi badan kadib intuu socdaalkooda socday waxay istaagayaan meel waxaan arkaan haweeney waxaan weydiinayaan wadada ay rabaan halka loo maro haweeneyda ayaan u sheegaysaa Nuura iyo Aleeg wadadaasi wadada loo maro kadibna Nuura iyo Aleeg soo baxayaan si ay u sii wataan safarkooda waxaan soo qaadanayaan gaarigooda markii dambe Nuura iyo Aleeg waxay soo gaaraan halkaan oo ku taal maqaaxidan yar dad muddo soo socday gaajo ay qabanaysaa waxay soo galaan maqaaxidii waxaan fadhiisanaa halka loogu talgalay waxaan u imaanaysaa kabalyeerigii waxaan weydiinaysaa waxay u baahan yihiin in loo keeno Nuura iyo Aleeg labada waxay dalbanayaan biyo loo keenaya sidoo kale markale waxay dalbanayaan cuntooyin in loo keeno haddaba ninkan meesha taagan wuxuu fiirinayaa labadaas Aleeg ayaa shakinaya wuxuu dhahayaa meeshan meel fiican ma halkan sidoo kale waxaa yaala laguna jarjaraya hilibka dadka Aleeg ayaa cabsanaya markuu arko waxyaabahan weydin sidoo kale Nuura iyo Aleeg mar kale waxa loo keenaya cuntadooda intii inta cunayaan Aleeg ayaa wuxuu ku dhahayaa hareeraha fiir dadka meeshan joogan oo idil aniga way soo fiirinayaan sidoo kale wuxuu dhahayaa ninkan waa bixina sababta dadkan waxay leeyihiin dhacabsan xariifkan oo meesha taagan ayaa hal mar wuxuu ka nixinayaa Nuura Aleeg ayaa ka dambeeyay Aleegna wuxuu xanaaqay kadib wuxuu ku dhahayaa ninka meesha kale Nuura cabsanaysa ayaa hor u soo baxaysa waxaan leeyahay in mar ugu daawada kani wuxuu cunaa dadka kadib ay halkaas soo tagaan waxay imaanayaan meeshan gas stationka Nuura iyo Aleeg ayaa nin halkan jooga waxay weydiisanayaan meel ay saxdaan caaba ninkii ayaa wuxuu tilmaamayaa meel faama oo dadka lagu marti qaado kasi baxan ninkii meel ayuu ka fiirinayaa sababtoo isaga dadka ayuu cunaa ugu dambeyn Nuura iyo Aleeg meesha way soo gaarayaan waxay ka soo deganayaan gaarigooda sidoo kale waxay soo qaadanayaan alaabtooda waxayna hor u sii galayaan faamkii Nuura ay Aleeg waxay ku leedahay meeshan waa meel aad iyo aad u cabsi badan balse isagu wuxuu ugu jawaabay aniga meeshan jabigeeda waa aan ka helay markay meesha maadaan waxay arkaan calaamado aad iyo aad u cabsi badan gurigan waa guri aad iyo aad qadiim ah ayaga wili ma aysan arkin wax dad cunay Aleeg ayaa isku dayay inuu iska dhigo romantic wuxuu guriga ka furaa Nuura markii ay gudaha u sii galaan guriga waxay arkaan waxyaabo qadiim ah sidoo kale waxa soo go'ay guriga ur aad u fira badan Nuura iyo Aleeg ayaa waxay ku farxaan gurigan kaligood oo kaliya joogan waxayna isdhaayaan soo baxa ka tagayaan balse Nuura ayaa waxay la yaabaysaa gurigan sidoo isku dhex yaalo sidoo kale Nuura waxay ku qeelinaysaa halkaan iyo jooga balse Aleeg waxa si waxba ka muusan galay asiga caadi ayuu iska ahaa Nuura Aleeg waxay soo galayaan gudahan waxa ku jira xariifkan ayaga markan balse isagu arka uu ku farxaya aragtidooda ninka amar wuxuu ku waqaya hello Nuura iyo Aleeg isku naxayaan sigan ninka sidoo kale uu ka cabsanaya markaas ay wuxuu sheegay ninka inuu yahay ninka leh guriga kadib ay Nuura iyo Aleeg waxay ku dhahaan anaga waxaan hadal xislay waxaan raadinayna meel aan caawas yahay balse halkan ay noo soo tir Nuura ayaa aad u cabsanaysa balse Aleeg wuxuu kala dhigay meesha neeta meel aad u fiican xariifkii Nuura iyo Aleeg guriga uu soo waday wuxuu geenayaa guri kale wuxuu ku leeyahay halkan ku soo dhawaada saakiinta ayaga ma oga laakiin ninkan dhagar ayuu rabaa inuu u maleeyo markaas ayuu ku dhahayaa ninkii ku soo dhawaada gurigiina cusub meelkan idinka ay kugu talgalay ilaa ay xilliga ratiin waad joogi kartiin balse weli Nuura kuma qanacsanaa joogitaanka halkan joogan Aleeg mar walba ku qanacnaa halkan inay isla joogaan waa guriga gowracitaanka halkan waxa ku dadsan dhiig balse Nuura iyo Aleeg waxba ma dareemayaan sababtoo ah ayaga jaceelkooda iyo dareenkooda oo kaliya ninkiina sida ay ku seexanayaan balse sariirta hoosteeda waxa ku jira ninkii hore guriga u keenay ayaga ma oga balse si lama filaan hal mar waxa sariirta hoosteeda ka soo baxaya xariifkan si lama filaan wuxuu ku dul istaagaya Nuura iyo Aleegna dad daalan ay masoo kacayaan way iska sii hurdayaan marka la gaaro subaxdii waxa si lama filaan hal mar shaqo baxaysa Nuura ay la yaabaysa halka ay ku jirto waxna sileeda halkan yaa ku keenay Nuura ayaa aad u qeelinaysa waxay ku qeelinaysaa Aleeg Nuura waxa uu imaanaya xariifkan kadib ay ku leeyahay jaqjaqda naga daa'ilaga kadib ay wuxuu ku garaacaya shabaq ay ku jirtay xariifka sidaas ay Nuura cabs ku gelinaya waa uu ka tagaya ehelba Nuura waxay aad geesid waxaan isku dayaysaa inay soo qabsato dhagaxaasi si ay meesha uga baxdo ugu dambeyn waxay soo qabsanaysaa dhagax la dagaalamaysa waxa ku soo foodlay dad qalatadii Nuura ayaa ugu dambeyn soo qabsanaysaa dhagax kadibna waxay isku dayaysaa inay jibiso qofulka meeshaasi ku xiran balse waa lagu dul imaanaya kadibna waxa lagu shubayaa biyo Nuura ayaa markii biyo lagu shubo kadib meesha laga soo wadaya waxayna keenayaan halkan Nuura waxay ka xirayaan lugaha sidoo kale waxay ka xirayaan gacmaha waxayna kaligeed ku soo xirayaan goobtani Nuura ayaa soo naaxaysa waxay arkaysaa iyadoo qaabdaran u xiran dad qalatadii mid kamid ah ayaa meesha uu soo galaya Nuura ayaa cabsi galaysa sidoo kale waxa galaysa rajalaan markii aragto ninka Nuurana waxay isku dayaysaa inay baxsato wiliba si awood ay xiriga u jiljilaysa balse xariifka wuxuu soo qabsanaya muda wuxuu bilaabayaa Nuura inuu xubinteeda taranka uu ka geliyo birtan Nuura ayaa aad u qeelinaysa waxayna ku qeelinaysaa iga saar xariifka soo birtu uga hay Nuura birtu uu ku soo saaraya kadibna wuxuu istaagaya dhinaceeda xariifka kadib Nuura ka tagaya wiliba iyadoo ku qeelinaysa maxaad ugu samaysay Nuura ayaa sidii u qeelinaysa daalaysa kadib ninka la soo galaya hadaba ayagoo laba waxayna bilaabayaan Nuura inay xarig ka furaan kadibna hore ay sii wataan Nuura ayaa markale waxa lagu soo qaadaya shabaqaan si ay u geeyaan meel kale Nuura ayaa waxa galaysa cabsi waxaan la yaabaysaa meeshan sidii ay tahay Nuura inta ay sii wadeen dad qalatadii waxay arkaysaa qof meel taagan la gowracayo dhiigana laga shubanayo kale mid caloosha laga jeexay oo laga daadin Nuura ayaa markii dambe lagu soo tuuraya halkaan waan lagu soo xiray sidoo kale ninkii Aleeg ah ee la socday Nuura isagana halkaan ayaa lagu soo xinkani waa u carab dheera afku waxa ugu xiran katiin si uu san u kheel markaa sidoo kale Aleeg mar walba wuxuu isku dayay inuu baxsado balse waa la soo celin jiray Aleeg ayaa markaan waxa galaysa cabsi aad u fara badan sidoo kale uu ilmeen wuxuu ilmeenaya Nuura markaan Aleeg way u imaanayaan waxay soo
qaadanayaan bir waxana u garaacayaan madaxa sababtoo isagu aad ay u khalkhalayaan mar waliba markaan meesha aloog joogo waxa joogan dhalinyaro kale mid kamid ah ay wadanayaan dad qalatadani dadku waxay ka jarjarayaan gacmaha iyo lugaha sidoo kale waxay ka daadinayaan caloosha markay dadka ka soo jaraan gacmaha iyo lugaha waxay soo qaadaan waxay u geeyaan booskoodana qof kale maahan waa qofkii markii hore soo gelinayay baxarkaani Nuura iyo aloog sidoo kale xariifkan booskiisa wuxuu sheegay meeshaas inay gabar ku dhashay kuna dhashay wiil xariifka ku jawaabaya gabadhaasi wiilkeeda halaga qaado wiilkan hal geeyo meesha wiilashka la geen jiray hooyada dhashay wiilka waxay ku oynaysaa iida wiilkay waa in bari ay sii daaya sama jir cid maqlay hadalkeeda cunuga ay qaadaan in miisaama dib ay ku dhahaan midkan uu anfacay meel hanal habartii ay ugu dambeyn isdilaysa booska ay maanay wuxuu arkayaa midkii habartii oo meesha yaala mar kale filimka wuxuu isku rogay dhinac Nuura ayadoo halkan iska fadhida oo ka fakaraysa isageeda aloog ayaa hal mar waxay maqlaysaa jabaq Nuura ayaa waxay ku fakaraysaa jabaqan inay raadiso halkuu kiimaanayo kadib markay kor fiiriso waxay arkaysaa gabar meesha ku dhaawacan oo meesha jiifta Nuura ayaa gabadhii waxay ku leedahay maxaa kugu dhacay gabadha ayaa ku jawaabaysa aniga halkan ayaa ku dhaawacana balse adiga halkan maxaad ka sameynaysaa Nuura sidii ay meesha ugu sheekaysanayaan Nuura ayaa gabadhii waxay ku leedahay aniga ku soo wareeganaya si aan ku caabiyo gabadhii ay ka diidaysa laakiin waxay ku leedahay halkan iska joog meesha aniga waa lagu dili rabaa Nuura ayaa ooynaysa waxaan galaysaa cabsi iyo rajo la'aan gabadhii dhaawacaneed mee gabar kale qol kale ku jirta oo Nuura iyo ayada is yaqaan kadib Nuura waxay ku leedahay halkan waan ka baxsanaynaa labadoodan waa ay soo baxayaan balse ninkan ayaa shakinaya markay arkaan meesha inay leedahay waardiye adagna meeshooda ay ku laabanayaan kadib gabadhii kale oo dhaawacaneed ayaa loo imaanaya kadibna waa la qaaday oo xambaaraya waliba ayagoo ka qabanaya labada gacmood weyn istaajinayaan Nuura intaas bay ay daawanaysaa kadib ay soo qaadanayaan midi waxaan ka gelinayaan dhuunta markay midida dhuunta ka geliyaan gabadha dhig bixisa meesha waxay dhiganayaan sakeel sababtoo ayaga dhiig ay u baahan waxaan rabaa inay cabaan sidoo kale waxay ku sameeyaan waxay ka jaxayaan caloosha mandheereedan waxay ku shubanayaan isla baaldigiile Nuura aad ay u oynaysaa way cabsanaysaa waxaan galaysaa markaan cabsida iyo rajalaantii ugu dambeysay Nuura ayaa markaan aad u rajo dhigaysaa waa ayna baqaysaa waxayna isleedahay markaan waa markii noloshaada kugu dambeeyay ayagana si ay u quraacdaan waxay soo qaadanayaan dhiigi iyo caloosha sidoo kale booska lugihiisa gacmihiisna waa loo geynayaa Nuura markaan cabsi aad u farabadan ayaa galaysaa waxaan loo soo garaacaya irideeda way cabsanaysaa waxayna isleedahay adiga yahay bis waa way ku dhamaatay iyadoo midaas ka fakaraysa ayaa hal mar waxa irida ku soo furaya saaxiibkeeda aloog Nuura aad ay farxaysaa waxayna ku dhawaaqaysaa aloog hab ay siinayaan waxay ku soo dashanayaan inay baxsadaan oo hore si carraa wuxuu soo badbaadanaya aloog Nuura ayagoo isla Allah ilaahay waa badbaadinaya waxa arkayaan ninkii kala tuuraya aloog Nuura wuxuu leeyahay aloog baxso adiga kaliya oo aloog ay dhulku deynayaan kadibna waxay soo qaadanayaan dhagax wajiga ayna dhufanayaan Nuura markaan waxa gashay baqdintii ugu dambeeyay waxaan isku dayaysaa mar walba inay baxsadeen soo carraysa balse Nuura markaan waxay soo gashay meesha dadka lagu qali jiray Nuura ayadoo cabsanaysa wareersan meel wajiga aadisan ayla waxay arkaysaa meel lagu dhuuman karo kadib meesha ay ku dhuumanaysaa Nuura markaan waxay maqlaysaa codad aad u cabsi badan sidoo kale waxay arkaysaa xariifkan oo meeshaan ku jira markaas ay weydiinaysaa wadada ugu fudud oo meeshaan looga baxsan karo isagana uu tilmaamay waa uu sheegay balse markaas uu weydiinay adiga aloog miya saaxiibtii kadib waxay u jawaabaysaa aniga aloog ayaan saaxiibanahay wadada ii sheeg ay tilmaamay kadib Nuura sida ay ku baxsanaysaa balse ninkii dardaaranka Nuura siinaya waxay tahay halkan mar baad ka baxsanayso dib baa ugu soo laaban Nuurana xariif kadalkiisu ay maqlaysaa oo taladiisu ay qaadanaysaa Nuura soo bixaysaa waxayna soo qaadaysaa wadada iyadoo carraysa waxay arkaysaa ninkan meesha istaagan kadibna way ku dhuumanaysaa Nuura ayaa mar kale soo laabanaysaa waxayna imaanaysaa meesha markii hore ay tagay waxayna raadinaysaa gabadhiisa qaanin qolkay ku jirtay weyn helaysaa oo ay ka furaysaa irida kadib waxay ku leedahay soo bax waan baxsanaynaa balse Nuuri gabadhii markay soo carraan oo ay soo raacaan gaarigaani waxay arkayaan gaarigii oo saaran dadkii dad khalatada ahaa ilaa ay ugu dambeyn dadkii dad khalatada ahaa ay sidaa ku soo afjaraan Nuura iyo saaxiibadeeda waa inay dubanayaan waxayna ka dhiganayaan dhaylo filimkan The Farm waa filim isku darsaday cabsi iyo foolxumo mid dadka tusay hadii laga waayo naxariista bini'aadamka waa filim aan ku habaarin qof walba daawashadiisa balse dadka jecel horrorka aad ayuu anfacay ay ku cajibisay qoladaan ha ilaa muuqaalkan like noo saarto sidoo kale page-keena subscribe soo dhaado lana wadaagto asxaabtaada kale mahadsanid hadaba daawade adigoo socda meel cidla hadii aad aragto meel ay ku qoran tahay fahamka martiqaadka ma gali lahayd oo ma tagi lahayd